kulanti wacan wanaagsan daawadayaal idin ahaantiinba ku soo dhawaada maanta iyo channelkeena bandhiga madaali waxaan idin soo gudbin doonaa sidii horeba aad uga barateen muuqaal kale oo xiiso leh maanta waxaan eegi doonaa sida dadka Chinese-ka ah ay u ugaarsadaan xayawaanka duurjoogta ah ama sadabinnada ay ugu dhigtaan ninkan oo leeyahay Jin Bin oo ku nool dalka China waxa uu ugaarsadaa xayawaanka duurjoogta ah xeeladiisa uu ku ugaarsada ayaa ah inuu dabin u dhigo xayawaanka yaryar sida bakaylaha sagaarada iyo xitaa kuwa waaweyn maantay muuqaalkan aan idin soo gudbin doonaa wuxuu ku ugaarsanayaa bakayle wuxuuna dhigi doonaa dabin haddaba dabinka waxa ka daran wuxuu isticmaalayaa alaabo yaryar sida baasakiil uu ka soo furay qaybta dambe ee masa taayirada wareejida iyo sidoo kale telefoonkiisa oo ah iPhone haddaba maanta bal nala daawada muuqaalkan iyo sida ninkani uu isticmaali doono boorsadan ayuu wataa way ugu jiraan qalabyada uu isticmaali lahaa sida dubayaasha iyo sidoo kale qoryihii uu kula xiri lahaa dabinka birtan waa intaan idin sheegay oo waa intii dambe ee baasakiilka uu ka soo goostay hadda wuxuu qiyaasayaa qaabkii uu u xiri lahaa dhulka oo jilicsan haddana roobsaday waxa uu ka saacidayaa in si fudud uu qoriga dhulka ugu mudo hadda wuxuu bilaabay xeeladiisa iyo sidii dabinkan uu u dhigi lahaa haddaba daawade ha ka ilaawin channelka inaad subscribe saarto teleefanka ayuu ku cabirayaa qaabkii uu u dhigi lahaa dabinka hadda cabirka ayuu ka qaatay muxuu samayn doonaa qorigan waa midka ka saacidaya inuu teleefanka ka celiyo qaybta hore birtan uu ku garaacayo waxaa loo yaqaanaa dubbe ama safaas هذا تليفونكي ayuu ku baraaweeyay bal sida xalku uu noqon karo xarigan waa midka la doonayo inuu ku xirmo xayawaanka soo gala meesha hadda wuxuu baraawo ka qaadi doonaa in dabinka uu maanta xiray uu ugu guulaysan karo inuu ku sii simo xayawaanka soo gala asaga ayaa iska matali raba xayawaankii ku dhici lahaa oo wuxuu baraawo ka qaadayaa in dabinkiisu uu yahay mid guulaystay hadda wuu baraaweeyay inuu yahay mid shaqaynaya iyo in kale waana siduu rabay
qoryahan ayuu sidoo kale wuxuu u adeegsanayaa in bakayluhu u maro inta geedka iyo dabinka u dhaxaysa, wuxuuna si teelteel ah halkaas ugu mudayaa dariiqii uu bahalku ka bixi lahaa. ujeedkiisa ayaa ah in meesha kaliya dabinku yaallo uu ku qasbanaado bakayluhu inuu maro, markaasna waa asaga iyo dabinka wixii kala qabsada. hadda xaalku waa caadi, boorsadiisa ayuu qalabkiisa ku aruursanayaa, wuxuuna doonayaa bakaylaha inuu u banneeyo oo daqiiqada kadib meeshan ku soo aadan. maxaa dhici doona? ninkan wuu ka tegey, xaafadda ayuu ka soo laaban doonaa. badan daawade nagu caabi subscribe-ka iyo like-ta. waxaa la gaaray xilliga bakayluhu uu imaan lahaa. hadda wuu yimid bakaylihii. khudraddan oo aad ugu soo carabta bakaylaha awgeed ayuusan ka beecan karin haddii uu carradaga ka dhow yahay. waa kan kii geli lahaa. bakayluhu shaki ayaa ku jira, balse khudradda oo carfoon awgeed kama weeca doono. hadda way qabatay dabinkii, waana sidii laga rabay. bakayluhu waa shakisan yahay in xaaladdu sida ka beddelan tahana wuu dareensan yahay. goor dhow ayuu baraawo iska qaadi doonaa. wuu arkay inuu xiran yahay, laakiin wuxuu sameeyo uusan garanayn. xitaa uma saacidayso inuu khudradda sii cuno. ninkan oo xilligii la gaaray wuxuu fiirinayaa bal inay jiraan wax ugu dhacay iyo inuu maanta ugaarsigiisa ku guuldaraystay. maanta wuu ku faraxsan yahay ugaarsigiisa. wuxuu iska ilaalinayaa inuu ka baxsado oo ay dhib ku noqoto inuu mar kale soo qabto. iphone-kii ayuu ka tirtiranayaa ciidda maadaamuu yahay telefoon aad u qaali ah. muuqaalkeena maantay intaas ayuu ku egyahay daawadayaal. haddaba daawada dad ku cusub tahay channelka subscribe dheh, kadibna furo gambaleelka sida warbixinada ugu horeeya ee aan kaga hadlayna xayawaanka ay si degdeg ah kuugu soo dhacaan. waa noo berri iyo muuqaal kale.